أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان مقتضى سجود السهو وما يتعلق به. فصل هذا كان فاصل مدح كلا سارو في بيان مقتضى سجود السهو. halmaanka sujuudiisii sujuudda waxa keenaya caddaynteedu u fasaliya sujuudda halmaanka sababaha keena ayuu u fasaliya iyo wamaa iladii yatacallaqu bihi bisujuudi sahwi iyo wixii la xiriira sujuudu sahwiga. fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala sababaha keena sujuudda la yidhaaho sujuudu sahwi. sujuudan sujuudu sahwiga la yidhaaho asbaabta loo jideeyey ama sababta mashruuca looga dhigay oo la yidhi sujuudu sahwi in lala yimaado waa sunno. sababta loo leeyahay waxaa weeye waa jabran lilkhalali alwaaqic fi الsalaaة. waxaa la kabahayaa nusqaanta ku dhacaysa salaada dhexdeeda oo qofku hadduusan sujuudu sahwiga la imaanin ajirkiisii nusqaana ku jirta. ajirkii marka salaada nusqaama uga jirta ilaa uu la yimaado sujuudu sahwigaas uu la yimaado. walidaalika qofka inta uu kala kulmi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo salaadiisu ay naaqis tahay oo ajirkeedii uu wax ka kala dhiman yahay, waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo sujuudu sahwiga si salaada looga ilaaliyo nusqaan ajirkeedii inuu ku dhaco. walidaalika nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi asbaabtan soo socota qaybo ka midahu markii ay ku dhacaan waa sujuudi jiray. sujuudu sahwi ayuu la iman jiray rasuulka salى اllahu calayhi wasalam. xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayana waxay ahayd: idaa shaka axadukum fii salaatih, qof adinka idin ka mid ah hadduu salaada ku shakiyo, falam yadri uusan ogaanin sallaa ثalaaثan am arbacan, ma 3 ragcuu tukaday mise 4 ragcuu tukaday, wuu ku shakiyey, falyadrax ishaka, shakiga ha iska tuuruu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. shakiga iska tuur, walyabni calaa ma stayqana, salaadiisana ha ku dhiso waxa yaqiinta ah. hadduu qofku ku shakiyo ma 3 ragcaad tukatay mise 4, yaqiinta ka qabso. yaqiintu waa 3 ragco, 3daa ragco ka qabso. ثuma yasjudu sajdatayni qabla an yusallima, markaas kabacdina 2 sujuud ha sujuudo intuusan salaamo noqsan ayuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. marka taasi waxay deliil u tahay mashruuciyatu sujuudi sahwi. sujuudu sahwi sababahan soo socda sabab ka mid ah hadduu qofku ku dhaco inay sunno tahay inuu la yimaado 2daas sujuudood sujuudu sahwiga ah. sababaha keena marka maxay yihiin? maxaa keena sujuuddaa sujuudu sahwiga? asbaabu sujuudi sahwi, sujuudu sahwiga sababihiisa 4 wey. sujuudu sahwiga waxaa keena 4 sabab. alأwal, sababka ugu horeeya tarku bacdin, waa qeyb ka tegiddeeda, qeybtaas oo min abcaadi salaati, salaada qaybaheeda ka mid ah. kan ugu horeeya waxaa weeye qaybihii salaada in lagula yimaado ay sunno ahayd, qeyb ka mid aad ka tagto. maxaa yeelay sunnooyinka qaybo ka midana waxaa la yidhaha abcaad, oo haddii qeyb ka mida laga tago waxaa sunnaha sujuudu sahwi in lala yimaado. sunnooyinka qaybo ka midana waxaa la yidhaha hay-aad, magaca hay-aad aa loo yaqaanaa, qeybna abcaad. marka kuwa haddii laga tago sujuudu sahwigu uu keenayo waa 7 sunno oo lagu magacaabo abcaadu salaat. waa noo iman doonaan oo uu ka mid yahay ataxiyaadka hore, oo uu ka mid yahay qunuudka, uu ka mid yahay. kuwaas waxaa la yidhaha abcaadu salaat. sunnooyin kale way jiraan laakiin waxaa lagu magacaabaa hay-aatu salaad oo iyaga sujuudu sahwi looma sunneeyo in lala yimaado. maalan tusaale ahaan tasbiixdoo kale subxaana rabbiya alaclaa oo kale haddii aad ka tagto ood halmaanto
أما سبحان ربي العظيم ذي الركوع لغو آخر سنجري أما سمع الله ذي لمن حمد آخر سكيدي أتكتكتد أما قعمه يعني كرلو قادة مركز صلاة الحرانة أفرتي ميلادان سومرني حيالها صورا هدات كتكتد سجود السهو لما سنيه لأنه لغمان مقعابا كواس أبعاد الصلاة معه وحاليرا هيئات الصلاة هيئات الصلاة مركز سنوين كقيبنا وحالغو مقعابا أبعاد قيبنا هيئات الصلاة سنة مركز هدات كتكتد سجود السهو للا إيمان أيو وسنة اللي يرى أبعاد الصلاة أو تضبعه تضبعك كوانت وتضبع النوع إيمان دونت ترك بعض قيب كتجد إذا وقيب تاسو من أبعاد الصلاة صلاة قيبه إذا كمده وتحيات كي هرات كتكتي أما قنوت كي كتكتي وإن التي ما هذه سجود السهو مع الحديث كي بخاري مسلم وحوها ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الأول التحيات كي هرو كتكي أوها المامر رسول صلى الله عليه وسلم وسجد نبي مركز سجودي قبل أن يسلم انتو سن سلام نقصا وسجودي النبي صلى الله عليه وسلم مركز التحيات كي ودميي وولي أسن سلام نقصنين أي سجود النبي صلى الله عليه وسلم حديث كبخاري مسلم وريي ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول ناسيا التحيات كهرو كتغ اسغو هلمامي وسجد قبل أن يسلم أو أمس بعد البعض أما قيب كمذا كتغيدي ترك بعد البعض قيبتي دي أو لغا تغو أبعاد الصلاة كي بعض كمذا كما تغينه قيب كمذا كتغتي وتصالحان يعني قنوتكي ودن كما أدن تغين لكن قنوتكي إرأي كمذا كتغتي قنوتكي نفتيسي كما ودا تغينه إرأيدي قنوتك وككوبنا قيب كمذا أيات كتغتي كترك الكلمة هل إرأي أو كلاءات كتغتي من القنوت التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم erayadii nabiga ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam oo qunuudka dhexdiisa ku jiray eray kamid ah ka tagtay wakada waxa lamida ibdaalu harfin bi aakhara ama xuruftii qunuudka xaraf kamida ayaad jeebkaaga ka bedesho xaraf kale aad ku bedesho amma tarku alfa fa innaka taqdi aw alwaw wa innahu la yadil fa innaka taqdi fa'da hadaad ka tagto ama waawdi aad ka tagto wa innahu la yadillu man walayt واوضا صد كتكتي فلا سجود لتركها للخلاف في ذلك فهذا يا واوضا صدات كتكتي دب لها او فانك كجرتا اما واوضا وانه لا يدل كجرتا تاس دب لها محايل الروايات وا اسكو خلافين والنبي عليه الصلاه والسلام فهذا فانك من ليمد مسوا كتغي فهذا النبي عليه الصلاه والسلام روايات كتاس وا اسكو خلافين سداس اوغد halkaas xaraf oo fa innaka iyo wa innahu daas looma sujuudayo laakiin erayo kale oo kamida qunuudkii kamida hadii aad ka tagtid ama atahiyat tashahhud al-awwal atahiyadkii hore kama aadan wada tagine qayb kamida aad ka tagto waxay keeni sujuud sahwi السبب الثاني سبب كلبات أسباب تكمل سجود السهو فعل ما شيء سمينتي سو شيء قاس يبدل عمده شيء قاس كسكيس وبرنا يصلاة ولا يبدل سهوه شيء قاس هلمان كيسنا وصن صلاة برنين إذا وقت جينا وصن صلاة برنين فعله شيء وسميه ناسيا حاله هلمامي وسميه سبب كلبات كينا يسجد السهو وحوه وحدي أتكس وسميسه صلاة أي كابريس لكن هدي هلمان أدو سميسه أيسن كابرين صلاة وقاعدة جود أما الضابط عام وسميه الشيخ رحمه الله تعالى وحول بو هداد كس وسميسه صلاة أي كابري لهي هداد كس وسمين لهين وهلمان أدو سمين لهين صلاة أيسن كابرين وحو كان سجود السهو ومثلا وحاكم ده الكلام القليل أو كلام صلاة ديات كل هذا الشيء وهذا سلمانت بشرط لكن كلامك إنه قليل دور كلمة أو ترسن إلى لح كلمة أي علماء الفقهاء هذا كحديين لح أري وح كبدن هذا كو هذا شو كثير ونغنى هذا البدن صلاة دنا وإبر مركز هذا البدن هذا كو هذا شو أما عمد وجو هذا أما هلمان وجو هذا الصلاة دي وإبر لكن وح لقى هذا اللي محيته
alkalaamu alqaliil naasiyan hadal yaraad ku hadashoo kooban waadna ishalmaantay markaasoo kale salaaddu kaa buri mayso laakiin maxaa lagaa rabaa atixiyaadka markaad dhammayso intaadan salaamo naqsanin sujuudu sahwi inaad la timaado kalaamu lqaliil oo kale maxaa yeele kalaamka qaliilka wuxuu ka mid yahay maa yubdilu camduhu walaa yubdilu sahwu idaa facalahu naasiyan waxaa la mida cabitaan shurbi qaliil oo salaadda dhexdeeda aad ku samayso wax yar aad cabtay biyo iyo caano iyo wax la mid waa ishalmaantay haddaad ishalmaantay wuxuna ay qaliil yihiin salaaddu kaa buri mayso laakiin maxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi waxaa la mida alaklu lqaliil cunid yar wax yar aad cuntay salaaddii dhexdeeda aad ku dhex cuntay haddaad kas u cuni lahayd salaaddu waa kaa buri lahayd laakiin maadaama hadda aad ishalmaantay waa lagu cudur daari laakiin bishardi an yakuuna qaliilan isaguna oo akligu waa inuu qaliil yahay haddaad halmaan marka cuntadaas yar aad u cuntay salaaddii dhexdeedii salaaddu kaa buri mayso laakiin maxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi inaad la timaadid athaalitثu aلsababu الثaalith sababka saddexaad ee sujuudu sahwiga keenayo naqlu ruknin waa rugni guurintiisa rugnigaas oo qowliyin ee hadal loo nisbeeyey ilaa gayri maxallihi maxalli rukni rugnigaas booskaas gayrkiis loo guuriyey oo ulajeeddadu maxay tahay arkaanta waxay u qaybsantaa qalbiya qowliya iyo ficliya arkaanu salaad waan soo marnay arkaanu salaadaasaa qayb ka mida waxaa la yidhaha ficliya waa wax ficilka laga samaynayo maalan rukuuci oo kale rukuuci waa wax ficilka dhaqdhaqaaq ku xihan inaad dhaqdhaqaaqdo wax ku xihan oo ficilka laga samaynayo sujuuddii oo kale waa rugni ficli ah oo waxaa laga sameeyaa wuxuu ku xihan yahay inaad dhaqdhaqaaqdo oo wejigaagii aad dhulka dhigtid kaasoo kale waxaa la yidhaha rugni ficli kaas laga hadli maayo waxaa laga hadlayo maxay yihiin rugni qowli rugniga qowliga maxaa loola jeedaa waa rugni afka laga sameeyo carabka sida faatixada akhrinteedii oo kale ataxiyaadkii ugu dambeeyey oo kale rugnigaas maxaa la yidhaha qowli marka rugnigaas qowliga ah ee carabka laga akhrinayo haddii booskii loogu talagalay mooye boos kale aad ku akhriso waxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi ama camdi ugu akhri kas ama ishalmaan labadaba salaadda ku buri mayso rugniga qowliga ah haddaad booskiisii inta ka rabto boos aan loogu talagelin ku akhriso hadha waxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi tusaale ahaan ataxiyaadkii ugu dambeysay adigoo maraya salaaddii meeshii lagaa rabay ataxiyaadka inaad ka akhriso waxaad aragtay adoo faatixadii daldalaya waa isxasuusisay waad isxasuusatay oo faatixadii waad joojisay ataxiyaadkii aad akhrisay maxaa lagaa rabaa markaa dhow sujuudu sahwi liannahu rugni qowliyaad waxaad ku akhrisay boos aan loogu talagelin oo faatixadaad waxaad ku akhrisay fadhigii ana loogu talagelin sidaas awgeed waa in hadhow aad la timaadid sujuudu sahwi ama waxaa la mida istaaggii meeshii faatixada in laga akhriyo la rabay waxaad is aragtay adigoo ataxiyaad daldalay waana taaganta faatixadii aad akhrin rabtay adoo ataxiyaad akhrinayaad aragtay waxaa laga rabaa hadhow sujuudu sahwi laakiin salaaddu ma kaa burayso haddii nadmigeedii iyo nidaamkii markaa kabacdi aad ilaaliso oo kabacdi aad saxdo naqlu rugnin qowliyin rugni qowliyoo loo guuriyo ama camdi ha ugu guuriyo ama halmaan ha ugu guuriyo ilaa gayri maxallihi rugnigaas booskaas gayrkiis loo guuriyo meel aan loogu talagelin ayaad rugniga qowliga ahaa aad ku akhrisay laakiin rugni qowli marka la leeyahay waxaa laga soo reebi salaamo naqsiga iyo takbiirta xirashada labadaasi waxay leeyihiin xugum u gaara ayay labadaasi ay iska leeyihiin oo maalan salaamo naqsiga haddii booskii loogu talagalay boos aan ahayn aad ku salaamo naqsato camdina aad ula jeedo kas maalan salaamo naqsiga maxaa loogu talagalay aakhiru salaa salaaddu markay kugu dhammaato ataxiyaadkii iyo hawshiisii aad dhammayso ayaa loogu talagalay inaad salaamo naqsato waxaadba is aragtaba adoon ataxiyaadkiiba bilaabin oo ragcaddii ugu dambeeyey maraya ataxiyaadkii adoon bilaabin oo ataxiyaadkii aadan akhrin ayaad kas waxaad u tidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah kasaadna ula jeedaa salaaddii waa eber markaa baatil ay kaa burtay salaaddii
haddii salaamo naqsi fii gayri maxallihi camdan aada uga timaado salaaddii waa kaa burtay. marka salaamo naqsigu wuu ka bedelan yahay arkaanta kale oo qowliga ah. arkaanta kale oo qowligaa haddii booskoodii boos aan ahayn aad ku akhriso walow camdiba uga akhri salaaddii kaa buri mayso, laakiin sujuud sahwiyaa laga rabaa. amaa salaamo naqsiga haddaad si kas ah meelaan loogu talagelin aad kas ugu salaamo noqsatid dee salaaddii way kaa burtay. haddii nisyaanna haddaad ishalmaantana mararka qaar way dhacdaa adigoo waxaad aragtay tusaale ahaan ataxiyaadkiiba aadan akhrin oo assalaamu calaykum iska dhahay. haddii halmaan ay kaa tahay salaaddii kaa buri mayso, laakiin rugnigii kale oo qowliga wuxuu uga bedelan yahay sujuudu sahwi male isagu. salaamo naqsiga haddii halmaan aada u salaamo noqsato meelaan loogu talagelin aada ku salaamo noqsato salaaddu kaa buri mayso, laakiin sujuudu sahwi male isagu. waxaa kuu soo haray waxaa kaloo laga soo reebi rugniga qowliga ah takbiirat lixraamka. takbiirat lixraam iyadana waa laga soo reebi takbiirta xirashada. takbiirat lixraam waa rugni qowli, laakiin haddii takbiirat lixraam aada la timaadid camdi oo meelaan loogu talagelin maahane meel kale haddaad ku samayso. takbiirat lixraam maxaa loogu talagalay awalu salaa, salaadda markaad xihanayso allahu akbar inaad tiraahdo. mar labaaduu haddana allahu akbar yiri kasuuna ula jeedaa oo wuxuuna ula jeedaa xidhasho marka labaad. haddana salaad miyaa laba goor la xirtaa waa eber, salaaddii waa kaa burtay. salaadda hal maraa lagu xirtaa allahu akbar, mar kaluu allahu akbar yidhi xidhashuuna ula jeedaa. dee qof cayaarayo way salaaddii way ka burtay markaas, leanna qofku salaadda marba hadduu bilaabo mid kale haddana uu xirto waa buraysaa salaaddii. marka labadaas waa laga soo reebi salaamta iyo takbiirat lixraam. waa rugni qowliya, laakiin waxay iska leeyihiin xugum u gaara. oo waxaanu nidhi salaamo naqsiga haddii boos loogu talagalay mooye boos kale aad kula timaado oon loogu talagelin, haddii camdi aad u samaysay waxaanu nidhi salaaddii yaaba buraysa. haddii salaamo naqsigii laakiin meelaan loogu talagelin aad ku salaamo noqsatay halmaan aad u samaysay salaaddii kaa buri mayso, laakiin sujuudu sahwi isagu ma laha. takbiiratulixraamna qofku hadduuba camdi u sameeyey kas oo laba goor uu xirto, salaad laba goor la xihanayo ma jirto, salaaddii ayaa markaas ka buraysaba. athaaliثu kan saddexaad naqlu rugnin rugni guurintiisa way rugnigaasoo qowliyin hadal loo nisbeeyey ilaa gayri maxallih, rugnigaa booskiisa gayrkiisa loo guuriyo. maxaa baxay rugni qowli la yidhi? waxaa baxay naqlu rugni اlficliy, naqlu alrugni اlficliy. haddii rugni ficil ah arkaanta ficilka laga sameeyo sida rukuucdii oo kale, booskii loogu talagalay maane boos kale hadduu ku sameeyo camdina uula jeedo kas. oo maalan yani rukuucii maxaa la rabay bacda qira'ati اlfaatixa, faatixadii markuu akhriyo suuraddii u akhriyo kabacdi inuu rukuuco ayaa la rabay. ma samayne samica allahu markuu yidhi oo sujuuddii laga rabay uu rukuucay. samica allahu liman xamida markuu yidhi kabacdii uu rukuucay. marka waa rukuuciiyuu kula yimid meelaan loogu talagelin ayuu la yimid, camdanuna u sameeyey. hadduu camdi u sameeyey salaaddii waa baatil. maxaa yeelay wuxuu uga bedelan yahay rugniga ficliga rugniga qowliga ah. rugniga ficilka ah haddii booskii loogu talagalay mooye boos kale lagula yimaado waxaa nusqaan weyn ay ku dhici, nidaamkii salaaddu khaldahay. habkii salaadda iyo afcaashii salaadda o dhan khalad iyo jahwareera ku imaanaya. marka rugniga ficliga habkii oo dhan uu khalad ku keeni. maalan hadda rukuucii qofku hadduu kula yimaado samica allah markuu yidhi samica allahu markuu yidhi kabacdii rukuuc camdiuna ula jeedaa, salaaddii waa baatil. maxaa yeele habkii salaadda o dhan uu bedelay. laakiin waa loo cudur daari haddii nisyaan ay tahay, salaadda ku buri mayso. halmaan hadday tahay waa loogu cudur daariyo salaaddu ma burayso. alraabicu aلsabaب الraabic, sababka afaraad waa sababka ugu dambeeya sababihii keenayay sujuudu sahwiga. iqaacu rugnin waa rugni rididiisa, rugni oo qofkii uu riday, yacni rugni uu la yimidaa loola jeedaa. rugnigaasoo ficliyin ficil loo nisbeeyey, rugni ficil ah ayuu sameeyey maca اxtimaali ziyaada,
ziyaadada suurtagalkeeda micigeedii ayuu ficilkaa riday rugni oo ficil ah oo dhaqdhaqaaq u baahan ayuu sameeyey waxaana suurtagal ah rugnigaasi inuu dheeraad yahay rugni dheeraad inuu yahay suurtagal ahoo aan la hubin inuu dheeraad yahay in kale ayuu sameeyey sujuudu sahwiyaa laga rabaa qofkaas oo tusaale ahaan maxaa ka mid a wuxuu ku shakiyey ma saddexaad tukatay mise afar saddex miyaad tukatay yacni saddex ragco mise waxaad tukatay afar ragco sida nidaamkuba sharcigu ahaa meesha yaruu ka qabsaday yaqiintuu qabsaday saddex ragco tukaday oo shakigii ahay amay ragcadan yacni afar ragco amaa tukatay shakigaas waa iska tuuray sida xadiiska hadda aan ku soo marnay saddexdii uu iska qabsaday waa istaagay ragco afaraad uu istaagay ragco afaraad markuu istaagay ayuu wuxuu ogaaday marka ilaa shakiyaa qofkii u dhacay ragcadaas afaraad markuu u istaagayo maxaa suurtagala inay khaamiso tahay ragcadan ilaa markii hore shakigu wuxuu ka soo bilaabmay ma saddexa mise waa afar kii afaraadaa iska tuurtay tii afaraad ayaad iska tuurtay waxaad qabsatay ragcadu inay saddex tahay tuuridda midda afaraad aad iska tuurayso dadaal unbaad ka wadaa mooye waxaad dhici kartaa in afarba aad tukatay oo ragcadan kalead u istaagayso ziyaado ay tahay aa suurtagala idan marka maxaad samaysay rugni suurtagal ay tahay inuu zaa'id kugu yahay ayaad samaysay hadha waxaa laga rabaa sujuudu sahwi inaad la timaadid sujuudu sahwi afartaas sabab ayaa keenaysa sujuudu sahwi laakiin waxyaalahan sahwigan iyo halmaankan iyo shakigan oo dhan waa markuu yimaado fii daakhili salaa adoo salaaddii ku dhex jira markii shakigu kugu dhaco markaas way marka sujuudu sahwiga lagaa rabo ama ashaku bacda alkhuruuj min asalaa tusaale ahaan salaaddii markaad ka baxday oo afartii ragco aad tukatay ayaa shaki iska yimid markaad salaamo naqsatay kabacdi waxaa shakisay ama saddex ragco tukatay ama afar ragco tukatay ama faatixadii halmaanto aadan akrinba ama labadii sujuudood mid ka mida aada halmaantay walaaca kugu yimid salaaddii markaad ka baxday kabacdi shakigaas imanaya bacda alkhuruuj min الsalaaة laa yuctabaru shayئa wax qiimaha uu leeyahay male salaadaadii waa kuu saxantay salaadaadii way kuu saxantay shakigu markuu qiimo yeelanayo oo qofkii salaaddii wax ka saxayo waa markii intuu salaada ku jiro ama salaaddii markayba dhammaatay oo salaaddii aad ka baxday kabacdi shakiga kugu imaanaya kaasi wax saamayna oo uu kugu yeelanayo male waxaad aamini salaadaadii inay si sawaaba oo saxa ay kugu dhacday faslun fii bayaani cadadi alabcaad min aلsalaa faslun hada midkan faasil mid wax kala saaro fii bayaani cadadi alabcaad qaybaha tiradooda caddayntoodu u fasal yahay qaybahaasoo min asalaati salaada ka mid a fasalkeennii hore waxaan ku soo qaadannay asbaabta sujuudu sahwiga keenaysa waxaa ka mid a tarku bacdin min abcaadi salaat abcaadu salaada marka fasalkan aan ku baranaynaa tiradooda iyo xisaabtooda abcaadu salaadka la leeyahay haddii laga tago sujuudu sahwi ayaa layska rabaa maxay yihiin imisayse ka kooban yihiin abcaadu salaati salaada qaybaheedu sabcatun toddoba toddobadaas mid ka mid a haddii laga tago waxaa lala imaanaa sujuudu sahwi amaa sunnooyinka kale haddii aad ka tegtid oo toddobadan ka baxsan sujuudu sahwi lama sunneeyo التشhهد ataxyaadkiibu kan ugu toddobada waxaa ugu horeeya ataxyaadkaas oo alawel ugu horeeyey iyo waqcuuduhu ataxyaadkaa fadhigiisii ataxyaadka ugu horeeya iyo fadhigiisi haddii aad ka tegtid waxaad la iman sujuudu sahwi maxaa yeeley waa sunno lagu kabayo sujuudu sahwi marka ataxyaadka ugu horeeya wuxuu sharaxa ku yidhi والمراad bه ataxyaadka ugu horeeya muraadka laga leeyahay allafظ الwaajiب في التashahud الأkhير ataxyaadkii ugu dambeysay ereyadii waajibka ahayd mid ka mida haddaad ka tegtid oo ataxyaadka hore aad ugu tegtid markaas way marka sujuudu sahwi aad la imanayso wa huwa 4 jumalin kamaa mara bayaanuh waa 4 jumlo waa markii lasoo gaabiyo intii waajibka ahayd lagu soo gaabiyey afartaas ataxyaadka ugu dambeysa waajibka ku ahaan lahayd haddii ataxyaadka ugu horeeya aad mid ka mida aad uga tegtid
waxaad la imaanaya sujuudu sahwi afarta jumlo maxaa loola jeedaa aلtaxiyaatu lilah intaas waa hal jumlo waa markii lasoo gaabiyo inta waajibkaa lagu soo gaabiyo almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu waa dhammaystiroo sunno weeye in lala yimaado intaas laakiin inta waajibka aلtaxiyaatu lilah waa jumla waaxida kow salaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wabarakaatuhuna waa jumla haaniya qayb labaad wey qaybta saddexaad salaamun calayna la yidhaha waa salaamu aan la dhehayn salaamun calayna wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin waa jumla ثaaliثa intaa saalixiin ku sin salaamun calayna wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin waa jumla saddexaad jumlada afaraad waxaa weeye ashhadu an laa ilaha ila اllah وashhadu ana muxamada rasuulu اllah ataxiyaadka intaasaa waajibka ah afartaas jumlo mid ka mid ah haddii ataxiyaadka hore aada uga tegtid sujuudu sahwiyaa laga rabaa sujuudu sahwi التشhهد ataحyaaدkii way ataحyaaدkaas alأول ugu horeeyey وqucuuduhu qucuudu التashahud الأول iyo ataحyaaدka ugu horeeyey fadhigiisii والصalaaةu ku salin weeye calى النabiy nabiga lagu saliyo salى الlaه وsلم وbaaraka عalayhi fiihi fi الqucuud fadhiga dhexdiisa lagula saliyo waa fadhiga ugu horeeya baعda التashahud ataحyaaدka hore ka bacdi saliyaa lala yimaadaa nabiga lagu salinayo salى الlaهu عalيه وaسلم salligaas ataحyaaدka ugu horeeya markuu dhammaado lala imanayo salligaa haddaad ka tegtid sujuudu sahwiga isagana lala iman waالصalaatu ku sallin weeye calى اlآali ahalada nabiga lagu saliyo salى الlahu عalayه wasalam fi التashahudi bacda التashahudi fiidaas waa bimacnaa bacd fi التashahudi bacda التashahudi ataxiyaadka ka bacdi aalka lagu salinayo ataxiyaadkaas alakhiiri ee ugu dambeeyey ataxiyaadka ugu dambeeya salliga aalka nabiga lagu salinayo salى الlahu عalayه wasalam waa sunno nabiga in lagu saliyo ataxiyaadka ugu dambeeya waa waajib laakiin aalka in lagu saliyo waa sunno aalkaa salligii aalka lagu salinayo ataxiyaadka ugu dambeeya aalkiiyaad ka tagtay salligii aalka lagu salinayey ayaad ka tagtay waxaa laga rabaa hadhow sujuudu sahwi wاlqunuutu kan ugu dambeeya qunuudka waxaa ka dambeeya الصalaaةu waالsalaamu calى الnabiy wاlqunuutu qunuudkii qunuudka waxaa loola jeedaa qunuudka salaada subax wاlqunuutu qunuudkii weeye salaada subax lagula imanayey salaada subxiga qunuudka lagula yimaado ragcada labaad samica allahu liman xamida markii la akhriyo ka bacdi qunuudka lala imanayo salaada subax haddii aad ka tegtid isagana waa inaad la timaadid sujuudu sahwi maxaa yeelay waa sunno ka mida sunnooyinkii laga soo guuriyey nabiga salى الlahu عalayhi wasalam maxaa yeele xadiis waxaa ku soo arooray culimmada ay saxiix yeeleen intooda badan xaafid ibn xajar casqalaanina uu yidhi waa xasan oo xadiiskii anas ibnu malik xadiis anas ibnu malik wuxuu ahaa qanata rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam shahran yadcuu calayhim hal bil ayuu nabigu qunuud waday salى الlahu عalayhi wasalam isagoo habaaraya nimankii ka dilay quraadii dadkii yacni xufaadulqur'aanka ahaa oo saxaabadii qur-aanka xifdisanaa dadkii ka laayey oo gaaladii isagoo habaaray hal biluu qunuudkaa habaarkaa waday nabiga calayhi الsalaatu wasalaam isagoo gaaladaas habaaray ثuma taraka hal bil markuu waday habaarkii waa joojiyey nabiga salى الlahu عalيه wasalam oo qunuudka ahaa fa amaa fi الصubxi amaa salaada subaxa falam yazal nabigu kama zuulin yaqnutu inuu qunuudayo xataa faaraqa addunya ilaa adduunyada uu ka faaruqay qunuudka salaada subax kama tegin rasuulku salى الlahu عalayه wasalam xadiiskaas waxaa wariyey anas waa khaadim rasuuli اllaahi salى الlahu عalayhi wasalam xadiiska marka derajadiisa xadiis saxa miya derajadiisa waxaa ka hadlay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa majmuuca ayuu uga hadlay imaamu nawowi wuxuu yidhi xadiiska markuu ka hadlayey waa xadiiثun صaxiix صaxaxahu moxamed bnu cali albalkhi waxaa saxiix yeelay sheekha la yidhaha moxamed bnu cali albalkhi ee culimmada waaweyn ee xadiiska ka mid ahaa wاlxaakim waxaa saxiix yeelay xaakim abu cabdillaah wاlbayhaqi waxaa kaloo xadiiska inuu saxiix yahay sheegay alimaamu اlbayhaqi raximah اllahu tacaala waxasanahu اlxaafid fii nataa'ij اlafkaar xaafid ibnu xajar alcasqalaanina wuxuu ku tilmaamay xadiiska inuu yahay xadiis xasana marka khilaafku wuxuuba ka taagan yahay xadiiska ma saxiixa mise waa xasan
laakiin culimmadii waaweyneyd ee xufaadulxadiiska ahaa xadiiska way saxiix yeeleen. xaafid ibnu xajar alcasqalaanina waa xasan uu yidhi liأjli abi jacfar alraazi, maadaama abi jacfar alraazi ninka la yidhaha xadiiska uu ku jiro oo mukhtalaf uu yahay oo laysku khilaafay, ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi xadiisku waa xasan. xataa haddii la yidhaha xadiisku waa xasan, waa xadiiska xasankaahi wuxuu la mid yahay saxiixa oo waa la deliishadaa oo waa la xujaystaa, waana lagu camal falaa. yuxtaju bihi wa yucmalu bihi, waana la xujaystaa waana lagu camal falaa. marka intaasoo culimo waaweyn ee culimmada islaamka ugu waaweynaa ayaa saxiix yeelay xadiisu anas oo ka hadlaya qunuudka nabiga salى اllahu عalيه wasalam salaada subax inuu ku qunuudi jiray xataa faaraqa addunya, ilaa addunyada uu ka faaro. waxaa kaloo sidaas oo kale qunuudka bayhaqi kitaabkiisa la yidhaaho الsunan الكubrى lilbayhaqi uu imaamu اlbayhaqi ka soo guuriyey sayidina abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali alkhulafaaء الraashiduun. afartii khulafaaء الraashiduun iyaguna salaada subaxa way ku qunuudi jireen. asaaniid saxiixa laga hayaa oo waxaa sugnaaday alkhulafaaء الraashiduun in iyaguna ku qunuudi jireen salaada subaxa. weliba wuxuu kalu wariyey imaamu اlbazaar fii musnadihi wuxuu ku wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalama qanata xataa maata. bazaar wuxuu musnadkiisa ku wariyey rasuulku waa qunuudi jiray ilaa uu ka dhintay salى اllahu عalayhi wasalam. wa abu bakrin xataa maata, abu bakrna wuu qunuuday salaada subaxuu ku qunuuday ilaa uu ka dhimanayey. wa cumar xataa maata, cumar bin اlkhadaab isaguna wuu qunuuday oo salaada subaxuu ku qunuuday ilaa uu ka dhintay. xadiiskaas xaafid nuuridiin اlhaythami kitaabkiisa majmacu zawaa'id wuxuu ku yidhi rijaaluhu muwahaquun, xadiiska ragga wariyey waa rag lagu kalsoon yahay. marka xadiiska isaguna wuxuu tilmaamay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu salaada subaxa ku qunuudi jiray ilaa uu ka dhintay, abu bakr uu qunuudi jiray salaada subaxa ilaa uu ka dhintay, cumar uu ku qunuudi jiray salaada subaxa ilaa uu ka dhintay. sidaasay marka qabsadeen jumhuuru الصaxaaba inuu qunuudku yahay mashruuc. lamana diidayo masalada bacdu اlmadaahib inay khilaaf geliyeenna waa jiraaho xanaabilada imaam axmed isagu ma qabo in la qunuudo, xanafiyadu iyaguna ma qabaan, abi xaniifa in la qunuudo ma qabaan, laakiin imaam maalik iyo imaamu shaafici labadaas waxay isku raaceen qunuudku inuu mashruuc yahay. khulafaaء الraashiduun iyaguna sida asaaniid saxiixa looga wariyey abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali, iyagana waxaa sanad saxiixa uga sugnaaday in ay qunuudi jireen. marka qunuudkaa qofku hadduu ka tago waa sujuudu sahwi inuu la yimaado jabran lilkhalal اlwaaqic fi salaat, iyadoo la kabayo khalalka iyo nusqaanta ku dhacday salaada. wasalaatu ku sallintii wasalaamu salaamidii weeye cala الnebiy, nabiga lagu saliyo salى اllahu عalيyه wasalam oo la salaamo, wa aalihi nabiga aalkiisa salى اllahu عalيyه wasalam oo lagu saliyo oo la salaamo, wa saxbihi nabiga asxaabtiisa salى اllahu عalيyه wasalam oo lagu saliyo oo la salaamo. fiihi ay bacda alqunuut, fiidaas waa bimacna albacd, bacda alqunuut, fiihi ay bacda alqunuut, qunuudka ka bacdi nabiga lagu saliyo salى اllahu عalيyه wasalam oo la salaamo, nabiga ahladiisa lagu saliyo oo la salaamo, asxaabta nabiga salى اllahu عalيyه wasalam lagu saliyo oo la salaamo. intaas iyaguna waxay ka mid yihiin salaadaadii salaamtaas abcaadu salaad, oo haddii laga tago salliga nabiga salى اllahu عalيه wasalam qunuudka, ama salliga asxaabta qunuudka, ama salliga aalka bacda alqunuud, iyadana waxaa lagu kabi sujuudu sahwi. sujuudu sahwigaasa isagana lala iman. marka alfaadda qunuudka laga soo guuriyey nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa sharaxa kuu dhigayo waxaa weeye allahuma hdinii fii man hadayt, ilaahu ihanuuni oo dadkaad ihanuunisay igu darwo, wacaafinii fii man caafayt, ilaahu dadka aada caafisay oo balaayada adduunyada iyo balaayada aakhirada aad ka caafisay, ilaahu dadkaa igu darwo, watawallanii fii man tawallayt, ilaahu ii hiiliyo dadka aad u hiilisay igu darwo oo ii gargaar, wabaarik lii fii ma acطayt, ilaahu nicmada aad isiisana ilaahu ii barakee, waqinii shara maa qadayt, wixii adigu aada xukumtay shartoodana ilaahu iga ilaali, wixii aada xukumtay shartoodana ilaahu iga ilaali oo qadaha shartiisa iga ilaali.
innaka taqdii adigaa wax xukuma oo xukunka adduunya aakhiraba adigaa iska leh walaa yuqdaa calayka adiga laguma xukumo oo xukunka adaa iska leh rabbiyow innahu laa yadillu man waalayta qofkii adigu aada xidhiiriso ilaahu ma dulloobo oo dulli adduunyo iyo mid aakhiraba ma arkayo qofkii adigu aada xidhiiriso oo aada u gargaartid walaa yacizu man caadayta qofkii adigu aada cadow aada la noqotayna sharaf ma yeesho oo adduunya aakhiraba ma sharafoobayo qofkii adigu aada cadow aada ka dhigatay ilaahow tabaarakta ilaahow khayrkaagu adiguu batay watacaalayta wax walboo xumaataana adaa ka sara maray falaka alxamdu calaa maa qadayta wixii aada ii qadartay ood ii xukumtay waan kaaga mahad celin oo qadartaada raalliyan ku ah astakfiruka wa atuubu ilayk ilaahu dembi dhaafaan ku weydiisan wa atuubu ilayk adigaana kuu toobad keeni marka alfaaddaas waa alfaaddii laga soo guuriyey nebiga salى اllahu عalayhi wasalam oo markuu qunuudayo uu akhrisan jiray rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayh faslun adaakani faasilun mid wax kala saara fii mufsidaati الsalaa waxyaalaha salaada fasaadiya ayuu u fasliya fasalkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa salaada maxaa buriya salaada maxaa buriya ayuu uga hadli doonaa waxyaalaha salaada burinaya maxay yihiin tabdulu salaatu salaadu waxay ku burtaa b14 14 oo khaslatan min khaslatin xaalad ah 14 xaalo ayay salaada ku buri meeshan sharaxa iyo matniga labaduba isku raaceen khislo xarakeeyey b14 khisla khaadu hoos dhigay waa khalad khasla laga rabaa khasla 14 xaaladood ayay salaada ku burtaa bil xadath ayay ku burtaa xadath ayay ku buri xadadka horaan u soo qaadanay laba u qaybsamay xadath asqar iyo xadath akbar xadadka asqarka oo xadadka yar waxaanu ku soo tacriifinay maa awjaba alwuduu waa wixii weesaqaad keena wixii weesada buriyaa waxaa la yidhaha xadath yar adoo salaaddii ku jira haddii weesadu ay kaa burto salaaddii waa ka kacwo xadadka waxaa kaloo soo gelaya meeshan alxadath alakbar xadaث الأكبر wuxuu ahaa maa أwjaba الwuضوء waa wixii qubays waajib ka dhiga oo manidii iyo wixii la midka aan soo marnay haddii marka adigoo salaaddii ku jira xadaث akbar uu kaa yimaado xadadkii weynaa oo qubayska waajib yeelayo de salaaddii ka kacway uu kaa burtay ama xadaث yaraa kaa yimid oo weysadiiaa kaa burtay adigoo salaaddii ku dhex jira salaaddii way kaa burtay marka maxaa yeele xadiiskii oo صaxiixa tirmidi uu sunankiisa ku warinayo wuxuu ahaa idaa fasa'a axadukum fii salaatih qof adinka idin ka mid a hadduu salaaddiisii uu yacni dabayl ay ka timaado dabada oo dabada ay dabaylu ka timaado falyansarif salaaddii ha ka baxo walyatawada hana soo weesaysto waliyucid salaatahu salaaddiisiina ha ku soo celiyuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam marka waxaa weye marba haddii xadaثba uu kaa yimaado adoo salaaddii ku dhex jira salaaddii way kaa burtay wa biwuquuci najaasati najaasta soo dhicitaankeedii najaastii soo dhicitaankeedii allatii laa yucfaa canha najaas aan la cafinaynin ayaa kugu soo dhacday adoo tukanaya wa sawaaءan waqacat calىa hawbihi maradiisii ha ku soo dhacdo wain lam yataxarak bixarakatihi maradu xataa mara kula dhaqdhaqaaqaysaba mara weynba ha noqoto hadday doonto ka darafi cimaamatihi dawiil cimaamad dheer geeskeedaa nijaas kaaga soo dhacday aw badanihi ama jirkiisa ayaa nijaas uga soo dhacday ow daakhila anfihi ama sanka gudihiisa ow famihi ama afkiisa ow caynihi ama ishiisa ow udunihi ama dhegtiisa waxyaalahaas oo dhan haddii nijaastu ay kaaga soo dhacdo meeshii aad ku tukanaysay jirkaagii maradaadii waxaasoo dhan nijaasu hadday kaaga soo dhacdo salaaddii way kaa burtay in lam tulqa haddii aan la tuurin nijaasadaas xaalan fii xaalin isla xaaladdaas haddii aan la tuurin min gayri xamlin min hayri wey meesha caynuu qoray nusqadan aan hayo min cayri uu qoray cayri cayri maa hayri waa hayr min gayri xamlin xambaarid la'aan haddii aan la tuurin nijaasadaas nijaasadu haddii kugu soo dhacdo isla markaa haddaad iska tuurto salaaddii waad wadan kartaa laakiin nijaasada hadda isla markaa tuurmaysahay waxaa weeye bian kaanat jaamida waa nijaaso qallalan oo kale hana xambaarin haddaad xambaarto nijaaso qallalan maradaada ay ku soo dhacdo ama gogashii aad ku tukanaysa ay ku soo dhacdo
haddii gacanta intaad saas ugu qaadato saas aad u tuurto dee markaa salaaddii waa eber lianna xaamilu nijaasaad noqotay adaaba ka darayba nijaasaa xambaartay maxaa la rabaa maradoo kale haddii kaaga soo dhacdo marada qayb ka mida qaybta ay gaartay nijaasadu kaaga soo dhacday maa qayb ka mida qabo saas dhag maradii u sii idaa nijaasadu kaa tuurmaysa markaas laakiin haddaad qaaddo ood xambaarto waxaad noqone xaamilu nijaasa amaa nijaasadu haddii ay qoyan tahay oo nijaaso qoyan oon la cafinaynin ay kugu soo dhacday taas ma tuurmayso maadaama ay qoyan tahay waktigu hadduuba waasac yahay oo inaad salaaddii dhammeed way kaa burtay aad ka baxdo iska soo mayrto markaas ka bacdi salaaddii aad ku soo laabatid wainkishaafu alcawrati cawrada faydmideedii weeye lam tustar cawrada haddaan la asturin xaalan fii xaalin isla xaaladdaas haddaan cawrada la asturin cawrada faydmideedana salaadda way ku burtaa cawradiiyaa kaa faydmantay cawrada faydmaysa waxaa loola jeedaa maa yajibu satruhu fii ahnaa'i salaa waa wixii asturku waajib ahaa oo salaadda dhexdeeda intaad ku jirto cawradii inaad asturto ay waajibka kugu ahayd ayaa kaa faydmantay dee cawrada waxa laga hadlayo kaliya yaan loo fahmin loolama jeedo saw-ataynka un yaan loo fahmin yacni meesha laga xaaro iyo meesha laga kaadsho kaliya kuwaa kaliya loolama jeedo maxaa loola jeedaa waan soo marnay qaybaha salaadda inta lagu jiro cawrada ah ragga ku ah iyo qaybaha dumarka ku ah inta waan soo qaadanay marka kuwii in la asturo xuduuddii in la asturo ay waajibka ahayd ayaa qaybu kaafiyen maalan dumarkii oo kale markay tukanayaan maxaa waajib ahay wejiga iyo labada calacalood maahan inta kale waxay ahayd cawro ayadoo tukanaysa haddii cagteedii faydanto markay sujuudayday ayaa cagteydii faydantay dumarkii gabadhii salaaddii waa ka burtay in lam tustar haddaan la asturin xaalan isla markii haddaysan ka gaarsiin oo marada aysan horeba maaragtaay meeshii faydantay aysan ka asturin waa salaaddii way ka burtay ama haddii qofku ka gaarsiiyo isla markii cawradu faydantay isla markiiba hore hadduu ka asturo salaaddiis waa sii wadan karaa ama haddii zaman dawiila uu soo dhaafay qadar yacni faatixada niskeed ama rubaceed laga akrin karo haddiiba qadarkaas cawradu iska faydnayd salaadda waa buri markaas waa in isla markiiba la asturo waannudqi dhawaaqid bixarfayni laba xaraf lagu dhawaaqo ayaa salaaddii ku burtaa laba xaraf haddii salaaddii adoo ku jira laba xarafaad ku dhawaaqday oo salaaddii xuruuftii ka mid ahayd aan ahayn xuruufihii lagu cibaadaysanayo ereyadii lagu cibaadaysanayo erayo aan ahayn ayaad ku dhawaaqday maalan imaamkiiyaa ragcadii maalan duhuraa la tukanayey ragcadii saddexaad uu ku atexiyaaday waa ishalmaamay imaamkii markaasaad u sheegto waxaad tihi qum istaagaa tiri qum carabiyaa ku tiri qum laba xarafaa ku dhawaaqday soo maaha eber way salaaddii waa kaa burtay maxaa qum kuu geystay hadal salaaddii aa ku dhex hadasha salaaddii ayaad ku dhex hadasha dee qum naftiisaa hadal noqonaysa qum nafteedii ayaa hadal oo dhanaaba la diiday haddii kale ha noqonin ninkii nin hadda ka hor waxaa la sheegay taleefon ugu soo dhex dhacay salaaddii isagoo tukanaya ayaa taleefon u soo dhacay markaasuu taleefonkii inta afka u dhoweeyey o qabtay wuxuu yidhi ma hadli karee salaadan ku jira iyada nafteedaaba hadala soo ma aha ya marka haddana sidaasoo kale qum haddaad tiraa imaamkiiad baraarujinaya markaasaa tihi qum carabi ku tiri qum istaaga ka wadaa salaaddii ku jirta waa eber salaadaadi dee qum nafteedaaba hadalaba qum labadaas xaraafad ku dhawaaqday hadal haddii marka qofkii taleefon u qabtay ninkan wuxuu yidhi salaadan ku jiraa ma hadli karo waaba hadlay salaadan ku jiraa hudey iyada nafteedaaba hadala qum nafteeda iyaduna waa hadal wanudqi dhawaaqid wey bixarfayni laba xaraf uu ku dhawaaqo ow xarfin ama xaraf uu ku dhawaaqo hal xaraf halkaas xaraf oo mufhimin ee wax fahamsiinaya ama waxaa jira xuruufta qaar carabiga macno dhalinaya hal xaraf isagoo ah maalan ereygan qi oo kale iyo ci iyo fi iyo shi iyo ereyadaas oo dhan waxaa weeye waa hal xaraf oo macno dhalinayo qi hadduu yidhaha qi ilaali wey isjir wey qi ilaali waa hal xaraf oo macno dhaliyo ci oo kale caynka hoos dhigan hadduu ku dhawaaqo ci macnuu dhalina macnahaasi waxaa weeye shaygan xafid wey fi fa hoos dhigan hadduu ku dhawaaqo macnuu faa'iideyna waa ballanka oofi fi oo kale
ama wuxuu yidhi shi oo kale shi ballanqaadka sameew shi wax ballanqaad erayadaasoo dhan hadduu ku dhawaaqo salaaddii waxay noqotay mid burtay hal xaraf oo waxaa weeye macno dhaliyey ama macno yeeshay wanudqi dhawaaqiday ku burtaa bixarfayn waxaa laga soo qabtay inta ugu yaroo salaadda ku buri karta haddaad ka badan 3 xaraf iyo 5 xaraf ku dhawaaqdana haddee kaba sii daranba inta ugu yaraa laga soo qabtay maxaa yeelay xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayay nin saxaabiya nin kale agtiisa ku ninaa hindhisay markuu hindhisay saxaabigu wuxuu yidhi alxamdu lilah markii hindhisayaa dhahay alxamdu lilah waaba toosan yaha kaas salaadda ka buri mayso haddee waa lagu salaadda haddaad ku dhex hindhisto alxamdu lilah waa dikri ilaahay aad ku dhex xustay salaaddii waa sax kaa buri mayso saxaabigii kale oo salaadda asna ku jiraa wuxuu yidhi yarxamuka allah eber wey kaa salaaddii waa ka burtay yarxamuka allah maxay tahay qof caadiyuu la hadlo allaha kuu naxariisto khidaab salaadda dhexdeeda in qof lagula hadlo waxaa la ogol yahay ilaahay rasuulkiis bis sala allahu calayhi wasalam in salaadda dhexdeeda lagula hadlo yarxamuka allah salaaddii yidhi nabiga marka calayhi salaatu wasalaam waa u yeeray saxaabigaas markuu salaaddii dhamaystay wuxuu yidhi ina hadihi salaad laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas salaadan looma ogola wax hadal bini aadama qof bini aadama kulamaad muxuuna yidhi ducow yidhi hadalkii kale maxaad u malaynay saxaabigaas waa u duceeyey saxaabiga kale markuu hindhisu wuxuu yidhi yarxamuka allah allah kuu naxariis yarxamuka allahu yuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hadal kalena yacni waa min baabi owla ow xarfin mufhimin ama xaraf fahamsiiye uu ugu dhawaaqay camdan kas uu ugu dhawaaqay waa qofku markuu 2 xaraf ama 1 xaraf oo macno yeelanaya kas uu ugu dhawaaqo laakiin hadduusan kas ugu dhawaaqin qofkii salaaddii ku dhex hadlay waa ishalmaamay inuu salaaddii ku dhex jiro waa ishalmaamay hadduusan kas ugu dhawaaqin oo halmaamo labaa loo kala qaaday erayada uu ku hadlay erayo yar oo kooban miya mise waa hadal dheer oo badan hadduu hadal dheer uu isagoo ishalmaamay salaaddii dhexdeedii ku dhex hadlo waa everway salaaddii xataa ha ishalmaamo hadduu doono laakiin hadduu halmaanku markuu ishalmaamay erayo kooban culimmada fuqahada waxay ku dabdiyeen sida xadiiskii nisyaanka halmaanka laga qaadanayo 6 erayaa lagu dabdiyey 6 eray waa la cafinaa halmaanka wixii ka badan la cafin maayo 6 eray salaadda dhexdeedii hadduu ugu hadlay isagoo ishalmaansan salaaddii ka buri mayso markaas oo lagu cafin wa bilmufdiri ayay salaaddii ku burtaa shay afuriya caamidan xaal uu u kasayaana afurinayo bilmufdiri wa bificli lmufdir shay afuriya samayntiisii ayaa salaaddii ku burtaa camdan caamidan xaal uu kasaayana uu sameeyey mufdir asagoo u kasaayo shaygii yacni waxa weeye waa qaacido kuliyahoo kullu maa abdala sawma yubdilu salaa wax walboo soonka buriya salaaddana waa burinaya adoo salaad ku jira wixii soomka burin jiray haddaad salaadda dhexdeeda ku samayso waa burinaya maxaa ka mid a cuntadii cabitaankii qoray oo dhegta aad iska gelisay adoo salaaddii ku jira yacni waxyaalahaas oo dhan wixii soomka burinayey haddii salaaddii dhexdeeda aad ku samayso wax soomka buriya way kaa buri salaaddii waalakli cunitaanay ku burtaa cunitaankaasoo alkahiiri ee fara badan naasiyan xaalu ishalmaamay uu cunay salaaddii oo dhexdeeduu wax ku cunay cunitaan badan uu ku sameeyey salaadda dhexdeedii waana ishalmaamay walakli اlkahiir marba haddii la yidhi cunitaankii badnaa isagoo halmaansan ay ku buri haddii la yidhi hadduu kas u samayn lahaana maxaad u malayn waa ka daran hadduu kas u samayn lahaana kas hadduu u samayn lahaa dee kaska naftiisa xataa waxaan lagu cafinaynin wax yar xataa xabad sisina haddii salaaddii dhexdeedii aad ku laqdood ku dhinjiso kasna aad u yeeshay everway salaaddii waa kaa burta kas wax lagu cafinaya maba jiraan laakiin waxa la cafinayo maxay tahay akliga kahiirka cuntada badan waxa lagu cafinayo waa naasiya hadduu ishalmaamay ama alaklu اlqaliil naasiyan falaa yubdilu الsalaa wax yaraad cuntay laakiin waa ishalmaantay salaaddii kaa buri mayso wax yar waa lagu cafinaya halmaanka ama akli اlkahiir ma la cafinaayo xataa halmaanba ha noqdo wa 3 xarakaatin 3 dhaqdhaqaaqyaal salaaddii ay ku burtaa xarakaadkaas oo mutawaaliyaatin ee xiriira
ولو سهوا ولو كانت تلك الحركات الثلاث حركات كسدح ذا سهوا هلمان بها هاتضي دونت سدح قورة دقدقاقدي صلاة دي أدو كل حجرة يدو وحو دحيا يسنجرة دقدقاق حريرة سدح قور أو حريرة ولو بأعداء متعددة ولو حتى حبنك للدوانبا أدرى دقاجيس هدا دونت هل حبن إنها تكوع العليس وشرد معه حبنك لبدلان هدي سدح قورة دقدقاقان أدو صلاة دي كجرة أو حريرة صلاة دي وكابرت كان حرك رأسه ويديه مدحينا وادقاجي لبدا قعمدنا وادقاجي وسدح مركب سدح ود مدحينا وادقاجي لبدا قعمدنا وادقاجي وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين لقطه هدي انت تلاب قادو ميشا غيسو hadana aad soo celiso waa laba goor laabtii xagga lugti u nuuxisay hadana meeshii ku soo celisay laba goor mudlaqan sawaaun hasala ittisaalun am la ama xiriiran ama yisan xiriirin laba goor lagu tiray بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة لكن قعنت هذه انت تكر وقاده هذا ماشي كسو عليسو وهل دقائق على حساب وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها قعنتي هذه أذكر وقاده هذا ماشي كده جسنا والله أما قعنتي هريت وضي أما قدال أسوع عليسي هل مرة أيضا على حساب وأما رفع الرجل لقطه كر لو قاده ومثل لابسنا كرة قادي فإنه يعد مرة هل مرة لا يترتاس ووضعها لقطة هذه للدجية ولو في غير موضعها ماشي دي بيادا كعلين ومالك لبالدجية مرة كلا لا يتر أيضا وواد قاضي ماشي دي بيادا كعلين ومالك لدكتي ومرة أيضا لا حسابي والفرق فرق أودحية بين اليد والرجل ولقطة يقعنتي فرق أودحية وحوي أن الرجل اللقطة عادتها السكون لقطة عادة وحوي إنه يحسشه ساسي أبلان تاعي بخلاف اليد لكن قعنته وحي أبلان تاعي دقدقاق ولذلك اللقطة ما دام عادة حصل أي تاعي لبق جورا لقترين لقطة حق هداد قيسو هدنا سوء عليسو لبق لكن قعنت هداد حق قيسو هدنا سوء عليسو هالمرة لقى حساب وثلاث حركات سد دقدقاق أي كبرتا حركات كاسو متواليات حريرة ولو سهوا هالمان بحتها هو سمي دقدقاق لما عفناه حتى هداد سلمانته أي سواء كان عمدا أو سهوا لتلاعبه على الصلاة دي وقع عياري مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه هذا هو الاسكي إلى لنكر دقدقاق وح مشقة مجرى لكن دقدقاقا صلاة برناية وحشر دي إنه يهي الأعضاء الكبيرة حبنها واوين وح صلاة برناية هدي لدقاقاجيو أما الأعضاء الصغيرة حبنها يريركا هدي لدقاقاجيو صلاة مبريس حتى دقدقاق وذهب فربط هدو دون مثلا فرتي وكله وقفك دقدقاجيناي واسكو حقاي فرتو اسكو حقا مثلا 10 غور 20 غور اسكو حقاي هدو دون فرتي مبريس دغتي يا دقدقاشي 20 غور 3 غور waxay doontaa dharaado ma burayso waxa la mid ah carabkii oo kale carabkii uu afka dhixiisa ku dhaqdhaqaajiyo haduu doono 100 goor ha dhaqdhaqaajiyo kama buraado indhaha la mid ah galkoodii indhihii walac ka siiyay 100 goor iyo ka badan ma burayso marka wax dhaqdhaqaaq loo diidayo waa xubnaha waaweyn ama cawradiisii ya dhaqdhaqaaq sameysay salaada dhexdiisii cawradii rag oo kale salaada dhex dhaqdhaqaaq ku sameysay ma burayso dib ma laha marka waxa la diiday xubnaha waaweyn sida madaxii gacantii lugihii waxaas la diiday oo salaada burinaya ama xubnaha yar yarka ah ishii oo kale carabkii oo kale dhegta oo kale waxyaalahaas cawradii ninka oo kale waxaas oo kale salaadii ma burinayaan xataa 100 goor haday dhaqdhaqaaqaan والوثبة بوتنتي أي صلاة كبرتا بوتنتاس الفاحشة فوش حميد بوتين وصلاة دي دحدو كبوت مسو بودي ولو هالمر بهبود هدو دونه صلاة دي وكبرت على المحبوتين كينا هي صلاة وكجرا مركا حركات كوحان سو مرني متواليات سد حركه او حريره هدايسن حريرين الزمن او دخايو او وقت دheer او دخايو صلاة دي ما بريس ولذلك waxa lagu xambaaray حديث أمامة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل زينب اللي يرى قبل يرى الشيء أي النبي عليه الصلاة والسلام سوى سجود سن أي دورك كسوفوش قبل يرى النبي عليه الصلاة والسلام واقع ولا استاجد هذا نوع سوء علي ورلكو هذا نوع صادق أنت أصلا قبل وعلينا هو حسلية يصندعن مركز حركات كاسمة هين حركات حريرة
ilaa muddu nabigu sujuudsanaana calayhi salaatu wasalaam muddo markuu sujuudsanaado kabacdii haddana oo istaaggii haddana la imaana marka xarakaadkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aysan ahayn xarakaad xiriira oo mutawaali ma aysan ahayn waxa la diidayo waa xarakaad mutawaali walwathbati bootintii ku burtaa bootintaas alfaaxishati ee foosha xumayd sifada alfaaxisha foosha xumayd waa sifo laazim ah sifo iska laazim oo ereygan bootin marba haddii la yidhi waaba iska faaxish haddii la iska dhaafi lahaa xataa ereyga alfaaxisha yacni bootintu mar walbaba salaadu way burinaya ama faaxish ha noqdo ama yuusan faaxishayn maxaa yeelay laa takunu wathba ilaa faaxisha bootin salaada dhexdeeda waaba faaxish weligeedba waaba fool xun tahay marka sifadu waa iska sifo laazima ahoo hadda wax laga faa'iidaysanayo sifadan ma jirto wadarbati garaaciddii oo salaada dhexdeeda wax ku garaacay darbadaas oo almufridati ee xadgudub ah ayay salaaddii ku burtaa garaacidda hadday tahay garaacid xad dhaafa waa garaacidda mufridada waxaa la yidhaha allatii yataxaraku lahaa mucdamu اlbadan waa garaacid oo jirka intiisa badanba uu la dhaqdhaqaaqay la nuuxsanayo waa dharaacid jirka intiisa badanba uu la nuuxsaday salaaddii waa ka buri ama haddii jirka intiisa badan uusan la nuuxsan oo gacanta kaliya hal mar waxaad ugu garaacday ama laba goor aad ugu garaacday salaaddii ma kaa burayso laakiin haddii jirka intiisa badan uu nuuxsaday taasaa waxaa la yidhaha aldarba almufrida salaaddii way kaa buri wa ziyaadati rugni ziyaadintiisay salaaddu ku burtaa rugnigaasoo ficliyin ficil loo nisbeeya caamidan xaal uu kasaayana uu ziyaadiyey rugniyuu ziyaadiyey kasugna u yeelay wuu og yahay rugnigan inuu ziyaado yahay maalan halkii ragcoo laba goor uu rukuucay waa hal ragco maxaa lagu ogaa hal mar inuu rukuuco laba gooruu rukuucay kasuna u yeeli sidaas salaaddii eber weyo salaaddii way ka burta ama hadduusan kas u yeelaynin oo ishalmaamay salaaddu kama burayso wa taqadumi hormarid calaa imaamihi imaamkiisa uu ka hormaray ku burtaa biruknayni laba rugni uu imaamka kala hormaray labadaas rugniyoo ficliyeyni ee ficil loo nisbeeyey imaamkiisii wuxuu kala hormaray laba rugni oo ficila ama ha dheerdheeraadaan laba rugniyoo dheer ha noqdaan ama laba rugniyoo midna uu gaaban yahay midna uu dheer yahay ha noqdaan waa isla mid mar walbaba tusaale ahaan imaamkii asaaba ka horreeyaba imaamkii asagoo taaganoo faatixadii akhrisanay isagu intuu faatixadii boobsiiyey ma'muum uu ahaa waa rukuucay samica allaahu liman xamidahu yiri welina imaamkii wuxuu u taagan yahay faatixadii laba rugnioo kala hor salaaddiisi waa baatil salaaddiisii baatil waa bigayri cudrin hadduusan cudurdaar lahayn hadduusan lahayn wataqadumi calaa imaamihi imaamkiisuu ka hormaray birugnayni laba rugniyuu kala hormaray labadaas rugniyo ficliyeyni ficil loo nisbeeyey watakhallufi gadaalmariday ku buri bihimaa labada rugni uu la gadaal maray bigayri cudrin cudurdaar la'aan uu laba rugni la gadaal maray laba rugniyuu la gadaal maray bigayri cudrin oo yacni labada rugni haddii lala hormarana salaaddu waa ku buri haddii lala gadaal marana waa sidoo kale ama han dheeraadaan ama yaysan dheeraan labada rugni maxaa yeelay nebiga salى اllahu عalayه wasalam xadiis bukhaari wuxuu ahaa amaa yakhshaa axadukum qofkiin ka cabsan maayo miya idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u soo qaado walimaamu saajid imaamkiioo sujuudsan haddaad adigu madaxaagii kor u soo qaadid an yuxawila allaahu ra'sahu ra'sa ximaar inuu madaxaaga ilaahay u bedelo madax dameer ka cabsan maysid miya marka xataa hal rugni waa xaaraan salaadduba yaysan ku burine hal rugni xataa salaaddii imaamkiioo sujuudsan ayaad madaxaagii adigu kor u soo qaadday waa xaaraam hal rugni laakiin salaadda kuma burayso laakiin xaaraamaad ku dhacday xadiiska bukhaari wuxuu tilmaamaysa oo ka cabsan maysid in madaxaaga madax dameer ilaahay u bedelo subxaanahu wa tacaala wa takhallufi gadaalmarid ay salaaddu ku buri bihimaa biruknayn laba rugni oo ficliyeyn ah oo taamayn ah walow hayra dawiilayn yaysama dheerdheeraan hadday doonto laba rugni oo imaamkii kala gadaal maray bigayri cudrin cudurdaar la'aan ayuu kala gadaal maray ka an rakaca alimaamu imaamkii waa rukuucsan yahay wactadala imaamkii samica allaahu uu yidhi wahawaa lisujuud imaamkii sujuuduu usii hoobtay wain kaana ila alqiyaami aqraba istaaggaba ha u dhowaado imaamkuya waalma'muumu qaa'im ma'muumkiina waa taagan yahay faatixadii weli uu ku mashquulsan yahay waa iska taagan yahay imaamkii waa rukuucay samica allaahu yidhi sujuuduu usii socdaa dee laba rugniyaad kala gadaal martay imaamkaagii
salaadaadii marka baatil bigayri cudrin la yidhi maxaa baxay cudurdaar la'aan lagala gadaal maro ama haddii cudurdaar uu jiro maalan cudurdaarka waxaa ka mid a ka an kaana badii'a alqiraa'a qofku waa carab culus yahay abuuris ahaan waa carab culus yahayo faatixadii muddo dheer uu ku daahay imaamkiina waa carab fududaay faatixadii intuu akhristo rukuucay oo samic allahu yidhi sujuuddii usii socdaa isaguna weli wuxuu la taagan yahay faatixadii oo carabkiisa culus carab culaysku marka waa cudurdaar hadduu khilqi yahay laakiin waswaasku cudurdaar ma aha dadka qaara waxay samaynayaan waswaas dartiis bismi illaahi araxmaan bismi illaahi araxmaan bismi illaahi maanta oo dhan wuxuu isleeyahay ma shidin maanta bismi illaahi shidaa ku celcelina waswaasuu la daahay imaamkii waa rukuucay samic allahu yidhi sujuudu usii socdaa asna weli bismi illaahi ku mashquulsan yahay waa waswaas wuxuu leeyahay weli ma dhihin weli ma sixin salaaddii waa baatil ka kacwo maxaa yeele waswaasku cudurdaar ma noqdo waswaaska waxaa la rabaa inaad balla dagaalanto waa shaydaan shaydaankii inaad istirsaal ku samayso ood la sii wado hawsha oo siduu rabay aad la sii wado ma ahan waa inaad la dagaalamto waswaaska haddaadan la dagaalaminna meel khatar ahoo foolxun uu ku gaarsiina meel khatar ah uu ku gaarsiina sida dadka qaarkoodba ku dhacday wuxuu dhaafiyey ragcadii hore ragcadii labaad ragcadii saddexaad imaamkii oo salaamo noqsan welina waa taagan yahay qofba meeluu ka galaa qof wuxuu ka galaa dahaaraduu ka galaa qof wuxuu ka galaa takbiirat lixraam allahu akbar allahu akbar allah maanta o dhan uu ku celcelin qof faatixaduu ka galaa qof ataxiyaadku ka galaa qofba meesha uu isleeyahay waa ka jelacsan yahay uu ka galaa shaydaanka makaayidiisa waa khatar badan yahay makaayidiisa waa khatar qofka uu u fiirsanaa shaydaanka hadduu ka geli waayo dhinaca xaaraamta inuu ku booriyo oo inuu wax xado qofka uu ka diido inuu wax dilo inuu wax dhaco waxyaalaha hadduu qofku ka diido wuxuu ka soo gelaa cibaadada dhexdeeda inuu ka fasaadiyo cibaadadu ka soo geli cibaadadii marka hadduu kaa soo galo oo shaydaankii waswaaskii aad ku adeecday dee waxay khatar u tahay inuu salaaddii dhammaydba ku dhaafsiiyo inuu kaa dhigo shibhulmajnuun qof waalan oo kale inuu kaa dhigo waxaa dhacday sheekh la dhihi jiray abulwafaa ibnu alcaqiil oo xambeli ahaa culimmada hore xanaabilada ka mid ahaa ninaa u yimid wuxuu yidhi sheekhow markaan salaaddii xirto allahu akbar waxaan is leeyahay haddana ma xihan waa ku celinaa allahu akbar aan leeyahay markaasu wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu ku yidhi idhab canii fa anta majnuun iga tagu yidhi waa waalan tahay markaas adigayaaba dhahaya waa xirtay haddana waxaan leeyahay hur ma aadan xihan waa xirtay haddana ma xihan waa waalantahay iga tagu yidhi majnuunaad marka waxaa weeye waswaaska waa khatar meel xun uu qofka gaarsan hadduusan intuu cusub yahay uusan iska qaban walidaalika kitaabkan la yidhaha lataa'iف اlminan alkubraa oo uu iska leeyahay sheekh cabdilwahaab الshacraani uu iska leeyahay qiso wuxuu ku sheegay qof waswaaskaas uu ku dhacay oo xagga dahaarada uu ka galay dahaaraduu ka galay marka wuxuu samaynayey dharkii si kastuu u dhaqo ma aaminayo si kastuu u dhaqo wuxuu leeyay weli nijaastiyaa baaqi ku ah markii dambe shaydaankii wuxuu u qurxiyey badda bisaa kuu dahiri kartuu yidhi marka dharkiisa badduu la aadi jiray badda ayuu ku soo mayrin jiray badduu ku soo dhaqi jiray baddii markuu ku soo mayrto haddana shaydaankii ilaa qofka markuu iska arkado marba albaabuu ka sii tuura marba boholuu ka sii tuura markii dambe haddana shaydaanku wuxuu yidhi yaa xaqiijinaya inaad badda ku soo dhaqday haddana tii uu ka sii shaki geliyey marka sheekh cabdilwahaab shacraani kitaabka alminan alkubraa qisada wuxuu ku sheegay markii dambe heer wuxuu gaarsiiyuu yidhi carruur badda agteeda ku cayaaraysa inuu intuu soo maro uu yidhaaho meeshan may arkayseen anoo saaka marayo dhar hinjinaya may arkayseen wala fiirso heerkuu gaarsiiyey anoo dhar wada may aragteenoo badda usii socda heerkuu gaarsiiyey fiir marka qofka shaydaanku sida talaacubka uu ka dhigto ku cayaaro wuxuu gaarsiinaya shibhulmajnuun marka dambe qof waalan oo dhaandhaan oo kale uu ka dhiga lidaalika marka maxaa la rabaa muqadamaat اlwaswasa in marka horeba aad la dagaalanto markuu bilowga kugu yahay bilowga intuu kugu yahay waxaan anigu iqiinay wadaad sidaas oo kale waswaasku ugu dhacay wuxuu yidhi dadka salaamtoodii aan ka shakiyo yidhi maxaa yeele dadku dahaaradoodii ma xaqiiqsanayo yidhi inay gacmihii iska dahireen in kale aan ka shakiyey dadkii marka haddaan salaamo waa iska dhaqaahoy qof kastoon salaamo waa iska dhaqaahoy dharka aan ku tukanayona wuxuu yidhi lama maro yacni magaalada lama maree
sanduuq gooniyahan ku xirtaa magaalada waxaan iskala maraa dhar aan isleeyahay ma hubtide iska soco marka waa shibul majnuun uu kaa dhigay shaydaanka haddii aadan marka hore aan iska qaban marka horena magac wuxuu kugu soo geli ixtiyaadaad samaynaya dadaal waxa aad wadoo dhan labis wuxuu u yeelaa shaati dadaal aad wadaa oo diintiyaadba ku adag tahayo dadaal aad wadaa waxan magacaasuu kugu soo geli والتخلف بهما بغير عذر والنية قدع الصلاة صلاة goynteedo la niyeysto ay salaada ku buri hadaad niyeysato salaadii inaad ka baxdo waaba ka baxday eber waa ku dhamaatay salaadii waxa istiri isaga bax assalaamu calaykum uma baahna assalaamu calaykum uma baahna dadka qaar markay yiraahdaan salaadii isaga bax ayagoo taag mesela waxba ka shakinayo waxay isleeyihiin salaadii kuma xirna marka assalaamu calaykum leeyahay السلام عليكم أبو الله بانوا هذه صلاة دينات كبح له أدنيستي وأكو لما صلاة بكم جرتيد بقى صلاة بكم جرتيد هذا حركة وتاجن السلام عليكم الله أكبر هذا سوي حرام كله هذه بالنية إكاس وقش صلاة دي كبح بس وهذا مات وتعليق قدعها صلاة حريد دي صلاة جوين تدي جوين تاسكو حريتان كدي بشيء كلا الوحر صلاة دينات جويسات شيء كلا كوسي حرت فمثلا waxaa tiri qofkaas masjidka haduu soo galo salaada waan isaga baxaa qof hebel masjidka haduu yimaado oo masjidka soo galo waa inaan salaada aan ka baxo eber way isla markaasiba salaadii ay baadil tahay marba hadii salaadaadiiba shay aad ku xirtay goynteedii wa taraddudi ku laabasho fi qadciha qadci salaada goynteedii lagu laabto ay salaadu ay ku burtaa waxyaalaha salaadu ku burayo waxa kamida salaadii waxaad ku shakisay ma goysaa mise waad sii wadataa مثلا adigoo gurigii jooga ayaa raashinkii waxaad aragtay neef ka cunay raashin hortaada yiri neef ka cunay waxa istiri salaada ma ka baxdaa oo neefka ma ka cishataa raashinka mise waa iska wadataa mise hadayba ku soo gashay salaadii waa burtay eberwo ma goysaa mase hadayba ku soo gashay eberwo يعني نفس التردد قاطع للصلاة ومبطل للصلاة ma ka baxdaa masaba iyada nafteeda salaadii burinaysa marka walba raashinku yuusan ka khasaarin salaad kuma jirtide neefka ka cisho marba hadiiba qalbigaaga soo gashay salaadii ma ka baxdaa horta ma goysaaba hadii soo gashay taraddudkaas uu yimid bis way ku dhamay wa taraddud kula laabasho way fi qadciha qadci salaati salaada goynteedii lagu laabto walidaalika hadda ka hor waxa la sheegay nina raashin hortiisa yiri raashin bisil ayaa hortiisa leeyahay xeero hortiisa la soo dhigay marka taxiyadka ugu dambeeyay maray mukulaala marka hilibkii ka qaadanaysa xeeradii marka taxiyadka ugu dambeeyay ku jira التحيات shidkii ku adkaynayo baash wuxuu leeyahay canaanta maqasho التحيات yuleey التحيات baash waa dhaqaaqi weys si kastoo shidkii ugu adkeeyay waa dhaqaaqi weys markaas markii dambe gacanta intuu ku dhuftay baashi madaxeeda التحيات soo kuma dhihin marba hadii التحيات soo kuma dhihin baa diir eber waay warkaas burinay ama qalbigiisa uu soo galay baashan ma ka cishataa yaani raashinka hilibka ma ka cishataa isagoo si wadata haduu isiri bis markaas salaadii ka burtay Allah subhanahu wa ta'ala